daawadayaal gaban ahaantiinba halkani waa warar sugan 24 ku soo dhawaada wararka maanta dunida ugu doorka roon waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo ah Maxamed Awd Cumar Maxamed Yumbi qodobada aad maanta aad ku maqlay doontaan oo jimco ah waxa kamid ah dab xoogan oo qabsaday suuqa balad xaawo ee gobolka Gedo dawladda Turkiga oo deeq mucaawinaha gaarsiisay Somaliland Shiinaha oo beeniyay in uu daboolayo xaqiiqada dhabta ah ee caabuqa coronavirus hay-adda Amnesty International oo Somaliland ka codsatay in ay si shuruud la'aan ku sii deyso wariye Abdimalik Coldoon dhimashada coronavirus ee dalka Mareykanka oo sii korortay iyo warar kale ku saabsan gudaha dalka Soomaaliya sidii uu u saameeyay coronavirus wasiirka caafimaadka oo marka ka dambaysa soo bandhigaysa xaaladda ku saabsan coronavirus ee dalka Soomaaliya dab qasaare xoogan dhaliyay ayaa waxa uu ka kacay suuqa weyn ee degmada balad xaawo ee gobolka Gedo sida ay sheegeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan walow aan la ogeynin waxyaabaha sababay dabka waxa uu si gaar ah u saameeyay baqaaro lagu keydiyo raashinka noocyadiisa kala duwan qaar ka mid ah ganacsatadii maalkooda uu cagta mariyay dabkaasi ayaa muujiyay dareen murugo leh walow alle weydiisteen in bedel taasi ka wanaagsan uu Ilaah uu siiyo mas'uuliyiin iyo saraakiil uu horkacayo Cusmaan Nuur Xaaji Macalimu oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ayaa goobtaasi tagay saacadii la soo dhaafay qaybo ka mid ah Gedo waxa ka da'ayay roobab xoogan waxaana dabka la sheegay in uu ka dhashay koronto walow aanan weli la xaqiijin arinta ka dambeysay dabkaasi hay-adda Turkiga u qaabilsan gargaarka dibadda ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano Tika ayaa maamulka Somaliland ku wareejisay deeq loogu talagalay ka hortagga faafitaanka viruska safmarka ah ee coronavirus agabkan ayaa lagu wareejiyay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Umar Ali Abdullahi waa wasiirka caafimaadka ee Somaliland ayaa ka mahad celiyay kaalmada uu xusay in waqti loo baahan yahay ay heleen konsulka Turkiga u fadhiya magaalada Hargeysa Ali Nogan Jashkun ayaa sheegay in ay sii wadayaan taageerida shacabka Somaliland waxaan u rajaynayaa wasaaradda caafimaadka ee Somaliland in ay ku guuleysato la dagaalanka COVID-19 ayuu sii raaciyay tan iyo markii bishii December ee sanadkii 2019 ka dilaacay bartamaha Shiinaha caabuqani coronavirus ayaa ku dhacay 2 milyan oo ruux in ka badan halka 137,000 oo qof uu galaaftay waxa sidoo kale ka badbaaday nus milyan qofood Shiinaha ayaa maanta beenisay eedeymaha dalalka reer galbeedka ka soo gaaraya ee ah in ay qarisay xadidka faafitaanka cudurka coronavirus waxayna sidoo kale ku gacan saartay tuhun ah Mareykanka in ay xiriir hoose la leedahay ururka caafimaadka ee WHO afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ninka lagu magacaabo Zhao Linjian ayaa qiray in sida dhaqsaha leh ay ku faafay viruskani ay keentay in la shaaciyo tirada tan yar ee saxda ah taasi oo dhalisay in maanta ay Shiinaha sare u qaaday tirada dadka ku dhintay caabuqa coronavirus hase yeeshee mas'uulkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa yiri marnaba ma jirin wax qarin ah mana ogolaan doono in wax la qariyo tuhunka ku saabsan in Shiinaha ay xiriir dhow la leedahay ururka caafimaadka ee adduunka loo yaqaano WHO ayaa ah kuwa loogu gafeeyo xukuumadda Beijing ayuu yiri afayeenka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa su'aal ka keenay sida Shiinaha ay ula tacaashay faafitaanka cudurkan iyo in ay daahfurnayd tan iyo markii cudurka uu ka soo shaac baxay magaalada Wuhan Decembertii tagtay xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Dominic iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale khamiistii shaki geliyay jawaabta Shiinaha ee viruskan ku aadan hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa maanta xukuumadda Somaliland ka dalbatay in ay xabsiga laga sii daayo wariye Abdimalik Muuse Coldoon oo maanta oo kale sanad ka hor ay xirtay
xukuumadda Somaliland ee lagu xiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Amnesty International ayaa waxay ugu baaqaysaa mas'uuliyiinta Somaliland in ay si dhaqso ah shuruud la'aan ah ay ku soo deeyaan suxufi Abdimalik Muuse Coldoon oo si sharci darro ah loogu xiray kuna jira xabsiga muddo sanad ah ayaa warbixinta lagu qoray. 1 bisha Abriil madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyay maxaabiis gaaraysa 574 maxbuus oo lagu soo kala qabtay daafaha deegaanada Somaliland. waxaana aaminsanahay in cafiskaas uu ku yimid qatarta uu sii kordhaynayo caabuqa COVID-19 balse dadkii cafiska helay nasiib darro kuma uusan jirin Abdimalik Coldoon iyo kuwa kaleba. 17 bishii Abriil ee sanadkii idlaada 2019 oo ay haatan ka soo wareegtay muddo sanad ah ayaa Abdimalik Muuse Coldoon laga qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Somaliland. waxaana eedeymaha loo soo jeediyay qayb ka ahaa dhaleecayn uu ku tirsanayo maamulka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo uu ku baahiyay bartiisa Facebooka. 3 bilood kadib 8 bisha Luulyo sanadka 2019 maxkamadda Somaliland gaar ahaan tan gobolka Maroodijeex ee magaalada Hargeysa racfaanka ayaa isku raacay in Abdimalik lagu xukumo 3 sano iyo bar oo xabsi ciidana. wixii intaasi ka dambeysana waxa uu iska diiday in uu racfaan u qaato maxkamadda sare ee Somaliland niyad jab ka soo wajahay garsoorka Somaliland awgeed. qareenadiisa waxay Amnesty International ay u sheegeen in xariga Abdimalik iyo xukunadii ku dhacayba ay ahaayeen cadaalad darro siyaasadaysan waxaana ka dhalatay in Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ka mid ahaa qareenadiisa uu iska casilay gabi ahaanba kiiskiisii qareennimo bishii Sebtembar ee sanadkii idlaada 2019 isaga oo dareemaya cabsi iyo hanjabaad ugu timid hogaamiyaasha Somaliland sida lagu yiri warbixinta ay qortay Amnesty International. 16 bishii Juun sanadkii 2019 Amnesty waxa ay aragtay saraakiil ka tirsan booliska gobolka Maroodijeex in maxkamadda si kadis ah iyo isku dayo looga hortagayo qareen Mubaarak in uu galo qolka maxkamadda ee uu joogay suxufiga. waxay ahayd in uu metelo suxufiga balse xariga Abdimalik waxa uu ahaa mid sabab la'aan ah maadaama la fuliyay amar la'aan. waxaa lagu xadgudbay qodobka 25 xeerkiisa labaad ee dastuurka Somaliland kaasoo dhigaya in booliska ay qasab ku tahay in ay helaan warqad amar qaadasho ka hor inta aanan la xirin ayaa lagu yiri warbixinta Amnesty International. warbixintan oo ahayd mid si aad u dheer oo sidoo kale lagu la fagurayay kiiska ku aadan wariye Abdimalik Coldoon oo ku xiran magaalada Hargeysa. waxaa maalmihii ugu dambeysay sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya caabuqa coronavirus ee dalka Mareykanka oo ka mid ah dalalka uu cudurka sida daran ugu faafay. warbaahinta gudaha dalkaasi ayaa waxay xaqiijisay maanta in cudurka ay u dhinteen dad gaaraya 35,000 oo qof oo muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka. tirada maanta la shaaciyay ayaa waxay ka dhigaysaa tirada guud ahaan dalka Mareykanka laga helay cudurkani 667,000 oo ruux taasoo ka dhigaysa in adduunka oo dhan uu ka horeeyo dhimashada uu u geysanayo caabuqa coronavirus dadka ka soo jeeda dalka Mareykanka. dhanka kale waxaa jirta in dalka Mareykanka ay soo wajahday muwaadiniintiisa shaqo la'aan ku sii baahaysa dalka intiisa kale iyadoo lagu qiray 5.2 milyan oo ruux ay soo wajahday shaqo la'aan kuwaasi oo ku nool gudaha dalka Mareykanka. gudaha dalka Soomaaliya ee qaasatan magaalada Muqdisho ayaa wasiirka caafimaadka Fawziya waxay marba ka dambaysa si toos ay u shaacinaysaa dadka u geeriyoonaya caabuqani coronavirus iyadoo 260 qof ay sii dhaafayso. haddana inta badan dadka ku dhaqan dibadaha ayaa shaki ka gelinaya arintani in ay tahay arin siyaasadeysan. sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa la isla dhaxmarayay sawir muujinaya mashiinka naqaska loogu talagalay ee la soo gaarsiiyay gudaha dalka Soomaaliya si looga tago dadka u baahan in ay naqas helaan. dadku naqaska ku dhajiyo coronavirus ayaa haddana waxaa la arkayay in gaari qaas la sii saaranayo. baraha bulshada ayaa aad loogu lafagurayay iyadoo dadka qaar ay leeyihiin xukuumadda gurigeedii ayay dhiganaysaa oo iyaga ayaa isku difaacaya. wararkeeniina maanta inta ayaan ku soo koobaya anigoo Maxamed Yumbi ayaa idinla socodsiinayay
intaan dib dib ku kulmi doono page-kani waa page warar badan aad kaga bogan doontaan haddii la raali ka noqdo subscribe oo bell akoonka furo si aad ula socoto warbixinta ka dambaysa sidaayo nabadgelyo